barnaamijka waxaan ugu soo noqday arrin la iiga bartay oo ahayd jacaylka qoyska oo aan hadda ka hor kala hadlay hablaha ayaa waxaan doonayaa dhigeedii maanta inaan wiilasha kala hadlo arrintaas dad badan oo bulshada ka mida oo ragga aqoon-yahaninta ee dhallinyarada ay u badan yihiin ayaa iga codsaday inaan raggana u sheego jacaylka gabdhaha waa u sheegay dad badani waa daawadeen waxaan hadda inay ku wada jiraan waxyaabahan midiyaasha aad haysataan ee gacmaha ku haysataan marka maanta waxaan doonayaa inaan wiilasha u sheego warbal gabdhaha jacaylkii lagala hadlayo way ku dhaqmeen oo way qaadeen tallaabadaas oo way ku guuleysteen raguna bal inuu ku guuleysto arrintaas jacaylka muxuu yahay marka jacaylku tii hore aan hablaha ka u dhigay maaha waxa weeye jacaylku waxa weeye horta marka hore labada qof inay aad iyagu isu jecel yihiin marka iyagu isbisleeyaan oo isjeclaadaan kadib ay qoys dhisaan okay maxaa wiilkii marka lagu yeesho wiilkii gabadhii markuu guursado aqal buu kaga tagaa wuxuu naqadada sii kari guriga sii joog meelahaas uga soo baashaalaa waa soo qosqoslaa farxad badan buu soo helaa gabadhii iyadu waxay ahaataa gurigii wax sii joogto okay maxaa laga rabaa marka wiilka war maxaa gabadha jacaylkii aad gabadha ku guursatay ilaan gabadhu maaha busta meelayaal iyo birkine maxaad ula qaybsan laada maxaad gabadha jacaylka u bari laada maxaad gabadha ula sheekaysan laada maxaad gabadha u raali gelin laada ilaan gabadhu maaha busta meel lagaga tageen marka ragga waxaan leeyahay dhalinyaroy ragga waaweyn ee jacaylka yaqaan iyo mutacalimiinta iyo maaha dadkan ka hadlaya seen bari markaan hadlayo waa 30 jir iyo wixii ka yar waxa laga yaabaa dadka oo habarta waalatay maxay ahayd jacayl ka sheekaynaysaa jacaylku waa waxa la isku dhalo ee aynu ku taranno ee guri ku hagaago jacayl jecelna qaran uu ka qiimo badan yahay jacaylku waa aabiyo la jecel yahay hooyadii la jecel yahay sadoodii la jecel yahay seedigii la jecel yahay dumaashidii la jecel yahay waxa soo baxaya bulshadan oo is jecel oo wanaagsan marka wiilka waxaan leeyahay eedo waxaad samaysaa gabadha la sheekayso gabadha maxaan ku sheegaa marmar dalxiis iyo meelaha u saar xafladaha iyo gabadha qalbigeeda wanaaji gabadha maskaxdeeda kasbo haday carooto waxa jirta waqti ay cadaysan yihiin oo la rabo in loo dulqaato waqtigaasi wuxuu maraabaan u malaynayaa 4 bilood 5 bilood gabadhu maaha maskaxdeedu ma degana marka ilaahay uu awraad ku abuuro caradeeda badan marka inaad tiraahdo aqayla badnida la rabshad badnida naga tag oo mid kala doonato waa khalad markaas jacaylku qurux badan yahay adaa beertan beertay macaani hagaaji wanaaji maxaan ku sheegaa raali geli gabadha kori maskaxdeeda yaa waxaan isleeyahay dhalinyarooy maaha Facebook la iska jeclaado maaha Facebook laga sheekaysto maaha in Facebook gabdhaha lagu raali geliyo gurigooda risaaqada ilaahay baa bixiyo reerku hadduu wanaagsan iyo raali isku yahay waxa weeye risaaqadba ma waayo furiinkuna wuu yaraanaya hadda waxa weeye furiinku wuxuu marayaa khayr alcaadi gabadhi ilmo wadata tiyo laba wadata tiyo maxaan ku sheegaa aroosa waxaana waa la burburinaya marka waxaan leeyahay daayare arrintaa laga gudbo dadka waaweyn shaqo kuma leh waa dhalinyarada markasta marka anagu haddaan ururka daryeel waxaan rajaynaynaa oo in la garab taagana inaan barno cuntada la jecel yahay dharka la jecel yahay uusiga la jecel yahay systemya in ka dhiman aydan gaarin rag iyo dumarba inana fadhiisana wiil iyo gabadhba wiilku keena inuu noqdo uusiga soo iibiyo adarka soo iibiyo dirac quruxda badan soo iibiyo habeenkii casho macaan soo qaado oo yiraahdo caruurtii waxay ku mashquulsantay ashawga xaajiyadii gabadhu way farxaysaa keena rag way jeceliina way qoraan uga la tagan keena leeyahay ninka fariidka oo reerkiisa kasbada marka waxaan leeyahay keena noqda casho macaan soo qaada uusi soo qaada adar soo wixii gabadha ay ka sugaysa maxay u dhibtay baris kari baad tiro gurigaad kaga tagtay warsaadid oo dul qaado oo ilmaha jecel oo saaw qaado ilmaha yar dhinko oo kooli oo gabadha ka reer markay soo adeeganayso waxa way adaa dhalay ilmaha ilaahay baa ku siiyay iyada kaliya ha ku eegin marka waxaan leeyahay jacaylka qoyska haddaan nahay daryeel ururka daryeel markasta waxaan jecelnahay waxaan u malaynayaa arrimahan sii daya 2 goor baan ka hadlaan u malaynayaa arrintaas jacaylka mar walbana hablahan la hadlaayay oo hablaha runtii hooyaanahay waxaan jeclahay hablaha waxa uu ambaro oo waxa uu aanu sheego laakiin bal wiilashana dayaga ruuxooda hooyaana marka wiilashana insha Allah wixii xaq u leeyihiin laakiin jacaylku waa muhiim
imikana waxa weeye barnaamijka dhan daryeel isu taagtay iyo baalaheeda iyo baartindeerkeeda iyo aqoon-yahaninteeda iyo la talinteedu waxay tan hawl yar ahayn markasta waxaanu jecelahay inaanu idin dhaga nuglaano waxaanu nahay dad muxuu ahaayay volunteer dad aan faa'iido doonayaal ahayn dad u heelan horumarinta bulshada kasta wanaagsan waxaanu jecelahay inaanu gacanta qabano wax kasta wanaagsan aanu bulshada ku hogaamino